السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور كراسي داسي وهذا كيسان إن لجاري وقت جيل بلا بلا إسكول لذا مركا ما توحن آدي أدوك فرح سنة هاي إن لو ذا جوالين الصوماليات دور كلمة ضد وأنا سلا هي وأمهم دلنيرتا ما دام للدون يردلنيرتو نكفى إذا استأثر دوسيات كصوص صعدة marka waxaan ku soo koobayaa afar qodob oo islaahay muhiim baa tawaliinta Soomaaliyeed oo gaadaan si ay ula jaan qaadaan ama sanadiyadka bilaabmaya ay uga faa'iideeyaan carruurtooda. Qodobka koobaad waxa weeye mar alle marka ay iskuulka la soo bilowga u noqdo waxa loo baahan yahay in waalidiintu ay carruurtooda la hadlaan la tashadaan una diyaar garoobaan sanadiyadka soo socda sida ugu wanaagsan uga faa'iideysan lahaayeen. Qodobka labaad waxa weeye had iyo jeerba muhiim waxa in lala yimaado wada shaqeyn wanaagsan oo la shaqeeyo iskuulka waayo wada shaqeynta iskuulka iyo gurigu waxay muhiim u tahay mustaqbalka ilmaha haddii wada shaqeynta iskuulka iyo gurigu ay xumaato ama wada shaqeynta iskuulka iyo waalidka ay xumaato ama macallimiinta iyo waalidka wada shaqeyntooda ay xumaato ilmahaasi waxay u baahan tahay inuu guuleysan markaasi marka had iyo jeerba in la wanaajiyo xiriirka ka dhaxeeya iskuulka iyo guriga aad bay muhiim u tahay. waxaa kaloo iyada laftigeedu muhiima sida caadiga marka iskuulada la furayo waalidiinta waxa lagu yeeraa kulankaasi waa laba qaybood kulka koobaad oo la siinayo marka waalidiinta macluumaad ku saabsan iskuulka sida waxa loo dhigo xaaladda iskuulka waxbarashada waxa laga doonayo waalidka waxay iskuulku doonayaan inay qabtaan qorshoodu wuxuu yahay sanadiyadka bilaabmaya sida ugu wanaagsan ay doonayaan uga faa'iideeyaan waxa uga baahan waalidiinta oo ah magaraysa wada shaqeyn ay sheegaan iskuuladu markay kulanka ay qabtaan ay dadka u sheegaan waalidiinta u sharaxaan waa iskuulku waxa og yahay waxa muhiimadu inuu tahay waalidka haddii waalidiintu la shaqeeyaan iskuulka wax badan baa marka aan hagaagin marka waxa laga rabaa adiga waalid ahaan hadaba oo muhiima inaad kulanka taagto ka qayb qaadato oo ogaato ilmahaagu iskuulka u dhiganaya meesha ku yaalo cidda wax u dhigaysa qofka mas'uulka ka ah waxa meesha laga qabanayo sida wax loogu dhigayo xaaladda saytana soo ogaata waa muhiim way haddana garanin ba iskuulka ilmahaagu dhigtay meel ku yaalo waa dhibaato inteeda leeg marka muhiim waxa weeye in labada waalid bataga baqultina waayo inta badan haddii qof loo diro qof kale meesha ka maqan yahay كل واحد بدن بقف كم مقال أنتجين مركا ماشى مركا هذه الجرب بين لبدو ولينا التجان أي سو قادان سكولك عاد بيت هاسي مهم وتاي إن وحكلوا مهمة أو يدل في المرنا بلقى مارمينين إن الصنايع مركا سكولك اللي سو قاده حالة سكولك اللي قاده كلن مركا إسنو حجرة كدم بيا ومركا معلمك أقابل سن أرض جاجا أما الماء أقابل سنة والله يشوا والد كستو وشكيو xaaladda iskuulka sida wax loogu dhigayo waxa laga rabaa ardayga waxa laga doonayo iskuulka sidii loo wada shaqeyn lahaa waxa soo looga sheekeeyaa kadib marka waxa weeye muhiim waalidka su'aal la weydiiyo ilmihiisa sidoo arko waxa uu baa ilmihiisa laga caawiyo sida ugu wanaagsan ilmihiisa wax loogu sheegi karo waayo waxa la rabaa macallimku inuu barto waalidka iyo ma garanaysaa ilmahaba marka waxa laga rabaa waalidku inuu barto macallinka iyo iskuulka labadaba inuu barto marka waxa fiicnaanaysa wada shaqeyntii u dhaxaynaysay waalidka iyo iskuulka qodobka afraad ugu dambeeya waxa weeye inuu qofka waalidkii soo qaato ogaado waxa loo yaqaan balaanka ama tiima balaanka ama jadwalka ilmaha waa ilmo kasta waxa la siiyaa jadwalkaasi wuxuu sheegayaa markuu iskuulka bilaabayo iyo marka uu dhameynayo inta u dhaxaysan waxa ku qoran saacad kasta waxa uu dhiganayo hadday noqonayso mathematics hadday noqonayso magrasa English hadday noqonayso maadooyinka faraha badan la qaatay mid kamid ah marka waxa weeye inuu macallin waalidku soo qaato iskuulka kadibna uu la socdo hadii jeerba ilmihiisa xaaladda uu marayo adduunyadu maanta waa la casri gareeyay technology baa la gaaray wax kasta waxay ku jiraan systemka uma baahnid in iskuulka timaadid ما برنا معلك حسوي ديسد ماشى ستك إجسا مركا هالكاسة اللي قلنا وحلي وأخباره هدينا قلت مغرسة امتحانك وعوها لي هدوها بصامي هدو اللي بتسمي ماشى سكوجرا وحرمة مركا قف قلت على الربا إنه مغرسة معلك ودي هدونا أقولوا لهين والله الشيء كدبنا مركا وهالكاك على سعود الميسة حالة دي سيسول كرسي عتاد إن وحكلوا إذا لفتقد مهمة إن أرددوا هذه تروح وبعينهن in la geeyo wax loo yaqaan training ilmuhu ku bad ciyaaro inuu dabaasho
inuu wuxuu isjecel yahay ciyaaro aad bay muhiim ugu tahay waayo waxaas waxay ka ilaalinayaan inuu ilmihiisa ku dhaco wax dhibaato waxa kale waxa ay ka caawinaysaa ilmihiisa yeesho saaxiibo wanaagsan oo la training la sameeyo oo la ciyaaro hadhowna kuwaas uu la qabsanaya markuu weynaado kadibna waxa laga yaabaa inuu ka fogaado wax la wixii markaa dhibaato keenaysa marka isboortigu carruurta uu ka caawiyaa caafimaadkooda uu ka caawiyaa maskaxiyan buu caawiyaa miisaankooda uu ka caawiyaa jirkooda uu ka caawiyaa marka ilmo kasta ha lagula dadaalo oo hal wadi waxa isugu jecel yahay waxaana markaa waalidku ka caawiyo gacan ka siiyo taasina markaa ilmo waxay keenaysaa in markaa xaaladiisu gacanta lagu hayo haddii markaa waxa dhibaato yimaadana ku saabsan dhinaca waxbarashada waxaa muhiim ah ugu dhaqsaaba in loola kaashado iskuulka iyo cidoo qaabilsan oo ilmaha laga caawiyo waayo waxaan ogaanay sanadii u dambeeyay arday badan baa ku dhacday imtixaanadii kadibna ardaydaasi shahaado ma helin hadduuna ilmuhu shahaado helinna hore uma sii soconayo jaamacad ma geli karo waxbarasho sarana ma qaadanayo ilaa uu soo dhammaystiro ma garanaysaa casharka lagu leeyahay hal arday waxaad arkaysaa hal cashar ku dhacay halkii cashar uu sababay inuu sanadkan jaamacadii ka hadho inuu shahaadadii una helin markaa si taa looga digtoonaado waxaa waalidiinta muhiim u ah in ilmahooda la socdaan tallaabo la socdaan oo imtixaan kasta waxa uu keenay natiijada xaaladiisu halkaa maraysa inay ogaadaan aad iyo aad bay muhiim tahay marka haddaad aragtay ilmahaaga oo cashar magaraysaa ku liita ama ku dhacay isaga u dhaqsaa badan markaa caawimo u raadso kadibna soo kac ilmoo kor u soo qaad waa maalintii iskuulku dhammaado ee ilmihii shahaado la siin waayo waxay noqonaysaa waqti dambe waxba lagama qaban karo laakiin hadda ayaad waqti haysta ka faa'iidayso kulley barnaamijkan waa barnaamij aad u dheer dhammaantiin waxaan ilaahay aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh